بأحكام صريحة ارتضاها ذو الجلال فاتبع هدي النصيحة ترتقي نحو المعالي. هدف كاسدتك مسلم كوقفك مركو مسلم نقضه ويول أما قول الراد عينيه لكن نرشو أهداف يريرو كسوكا يسيلاده وحال الربا أهداف يريرو سوكا إني أخد ميسو هدف كوين يعني وحكستو هدف كوين كوي عينيه وإنو النقضة وحان معنا بدنك تادا كالسمينين مثلا إن الحوك ستو وشغيستي وهانتي يالتي ومباح ووح بنان نوشنا ولا قربه لكن هدي هدفك كوي دارين ايان كورر إلهي كو قرآن كو أماني وحلي محي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كوحبا إلهي أماني كوحدا الأماني وحلقت المامي رغنمو الرجال ويان باليدي والرجال محيكو سفوبة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله باع مشتركة إيا لعقت كسب الشديد كما ويعسه ما إلا وسيسه هدفكي وينه إنو صلاة أوغو إنو زكاة الله يماده إنو إلهي عابده إنو حصه إن آخره هرتي سايتا الله يخافون ربهم إني ربي قد كعب صريان مالن قلوبتا يقدوميسو إذن هدف كويني وحان سوكو أورنا من ضباب كمردان عريان ما هكا قارن كرتا مشكلة ضدك هاي ستاوغو بدني وحوية إلهي وحوينا ليه هذا الصلاة دا لما يسان محل يليلي فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صلاة دا مركا لما يستان نلقى كفافة إلهي رزاق دي سرات سدا الليلي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لكن الكفاف هي التجارة دي وحنا هدي هدف كوين قلضيان إيجا لغو هرتقية ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحبدا مركا ما أنت أهداف تواوين تيدتكو إلا بان وحي يريرو سكينكو مشغولة وحلقيا بان انت الساعدودات كو بحسي سكول كيات ساقدي وكورن يوم القيامة هدات ساقده ما انت أن ساقد نمك وين يشرين هلقيا بينو ليه هي عيبوبين وكورن قيامة مركا غير نبي آدم ودن الله سكينة هداد عيبوده يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية غير نبي آدم إلا كودن بيقوبي تاقيهين هداد عيبوده وحلقيا بينات سلادة نولش وكوا أدكتي فضوده وكورن maalinta 50 kun oo sanadooda noloshaynu joogno dhammaymisa 60 sano 70 sano 80 sano ka waran maalin 50 kun oo sanadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba la isla gaadhin kana 50000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin 50 kun oo sanadooda 50 kun oo sanadood baa taagnaanaysa 50 kun oo sanadood baa dadkan la xisaabaya 50 kun oo sanadood baa cadceedu halkan taagan tahay 50 kun oo sanadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50 kun oo sanadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50 kun oo sanadood baa ragga qaar harsanayaan oo carshu raxmaanka harsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiisa madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyeysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysaa gacantooda bidixaanay ogeyn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naaga quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh u yeedhaa tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay harsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka waran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacab iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka waran 50 kun oo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabayaan haraadayninba yani hadafka weyne hadduu lumo
noloshan soka qiimo ma leh shayaatiinu linsi waljinnina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya nin baa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul amaan xagee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaana dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhan kuu kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebel uma maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaayban asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciidaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufradan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahay qaarna naar bay u tahay laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fasal ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fasal ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiya baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwa islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaana wa tacaala